magacaygu waxaa la yidhahdaa Wasil Bilaawe waxaan joogaa magaalada Edmonton. Shaqadeedu waxay tahay internetkana waan ka shaqaystaa, financial advisorna waan ahay. Dadka rabo maxaa tira internetka inay ku soo biraan oo ka shaqaystaan halkee wax ka bilaabi karaan. Su'aashaas haddaan ka jawaabo waxay wax ka bilaabi karaan kow waxay u baahan yihiin in ay helaan information ku filan barnaamijka ay rabaan. Barnaamijyada maxay yihiin internetka laga qabsan karo. barnaamijyada internetka laga qabsan karo waxaa ka mid ah inaad maxaa tiraahdaa Amazon aad ku shaqaysato, waxaa ka mid ah inaad YouTuber noqoto, waxaa ka mid ah inaad blogger noqoto, affiliate maxaa tiraahdaa aad la noqoto qolo wax soo saartay. qoladaas marka waxooda aad maxaa tiraahdaa advertisement ugu sameyso oo dadka iibsanaya barnaamijkan iyo qofka aad isku xirto. qaab waxaa jira software maxaa tiraahdaa loo isticmaalo marka kadibna qofkaas ay ku beegarayso 50% 25% hadba wixii ay ku heshiiyeen. marka barnaamijka internetku waxa waaye dhaqaalaha hadda ugu badan marka la joogo North America ama Western countries-ka dadku badanaa 30% waxay ku shaqaystaan internetka ayagoo shaqeynayo shaqooyin kala qabanayo. haddii dadka shaqooyin kala qabanayo internet ku shaqaysta lagu daro ilaa 50% dadka waxa waaye internetkaasi wax ka soo saaraan. marka siyaabo kala duwan internetka wax looga soo saaraa. midda kale Amazon maxaa tiraahdaa sidee lagu bilaabi karaa. Amazon waxa lagu bilaabi karaa Amazon Canada iyo Amazon USA. marka North America aad joogto labadaasba waa ku furan yihiin inaad badeeca aad maxaa tiraahdaa u dirto badeecadaasna ay ku sii iibiyaan. marka qaabkee loo bilaabaa taas maxaa tiraahdaa qofkii rabto waxaan ku xirayaa maxaa tiraahdaa dad barnaamijkaas expert ku ah oo marka horeba aniga ii sharaxay